xuska kontonguurada ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Tanbeydhaba ee xarunta gobolka Baay iyadoo ciidamada gaadaka ciyaar ay ku soo mareen qaybo ka mid ah magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen saraakiil sare oo ka socday taliska ciidamada asluubta maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo ururada haweenka ayaa ka qabsoontay magaalada Baydhaba. laba xidigle maxamuud muyaashi cismaan oo ah taliyaha xabsiga magaalada Baydhaba oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin u dabaaldegidda kontonguurada ka soo wareegatay aasaaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana dhinaca kale uu sheegay in ay yihiin kuwa dhaqan celin u sameeya dhalinyarada kala duwan ee lagu soo xareeyo xabsiyada ku yaala gudaha magaalada Tanbeydhaba ee xarunta gobolka Baay. mayba eedanka faraxsanaa xafladun qiimaha qaaya leh oo geeka intaasoo mas'uuliin ah kala qiib galeen dareen shakayna malaha koobo koro eeda aan faraxsanna inta oo saraakiil iyo dable iyo saraakiil kiigan marweyn mudanayaala dhamaantiin 140 ka salaame waqtiga noo yar daraadiis way ka dhawaay doonaa taliyaha qiibta gaashaale sare aadan cali axmed oo ah taliyaha ciidamada asluubta qaybta Koonfur Galbeed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay uga dhigan tahay munaasabadan weynaynta isla markaana bogaadiye dhammaan xubnihii ka soo qayb galay oo dhammaantood ka socday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. geek maalintii oo maalin weyn waa aasaaska ciidanka asluubta way asluub meelin lijeed horta asluub meelin lijeed dhaqan toosiska loo 57 lafdhabarka ciidanka asluubta dawladda way maalintii oo ciidamada galabka sida meelweel baroogan uu ku salaamani way mar lama dadka dhaqan ilaahay ma beesta walwal tooshay walilanka diaadisi awshi hakaasi kida hadil ki oo al-shabaab daash ayu noo walwal dadka tooshay ciidanka asluubta. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse oo kulankaasi soo xiray ayaa waxa uu khudbad ka jeediyay uu sheegay in ay yihiin ciidamada asluubta kuwa ugu mudan in la garab istaago isla markaana u baahan in la caawiyo maadaama ay gacanta ku hayaan maxaabiis kala duwan oo dabeecado kala duwan leh balse ay yihiin kuwa dhaqamada dhalinyaradaasi toosiya. waxa uu baaqay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeedba iyo hay'adaha caalamka in la dhiso xabsiyada ku yaala Koonfur Galbeed si markaasi loo caawiyo in lagu hayo dhalinyarada u baahan dhaqan celinta. waajibaadka hadaan u gudubno oo muxuu qabtaa ururka asluubta Soomaaliyeed ururka asluubta waajibaadkiisa aad u fara badan yihiin waxyaalaha uu qabtana waxa kamid ah maamulka imaareynta xabsiyada ee dowladda Soomaaliya meel kasta ay ku yaalaan xabsi allaala xabsi kasta oo ku yaala Soomaaliya maamuladiisa waxa iskala ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay kaloo waxyaalaha ay qabtaan waxa kamid ah daryeelka maxaabiista maxbuus kasta oo ku jiro xabsiga oo xorriyadiisa laga qaaday waxa daryeelidiisa iska leh taliska asluubta ama ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxa kaloo kamid ah waajibaadkooda waxbarista maxaabiista ku jiro xabsiga waxa waxbaro oo waqti badan galiyo taliska asluubta Soomaaliyeed waxa kaloo kamid ah waxyaalaha ay qabtaan wax soo saarka dalka ay wixii qayb weyn ka yihiin ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa kaloo kamid ah inay ka shaqeeyaan ama ay leeyihiin hanti maguurta ah oo ayaga ay leeyihiin sida beeraha iyo daaraha ay leeyihiin ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka waa dareemi kartaan ciidan wax soo saar leh oo maareeya xabsiyada dhammaan Soomaaliya inay yihiin ciidan awoodaas leh mugaas leh. xasan salaad xasan laki raadiyaha telefishinka dalsan Baydhabo Janay.